السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada casharkeeni tobnaad ee ku saabsanaa constraints-ka qaybtiisa shanaad kaasoo aynu ku soo qaadan doono unique constraint. Unique constraint marka aanu leenahay shaqada ay inoo qabanayso unique constraint waxa weeye in row kasta oo ka tirsan table-keena uu haysto column isaga u gaar ah, macnihii unique value uu ku keydsan yahay column-kaas oo aanu jiri doonin row kale oo la mid noqonaya, kaasoo aynu odhan karno mar haddii ay tahay in unique macnihii fariid min noocihiisa, macnihii rowgaasi uu haysto unique value column uu ugu keydsan yahay isla mar ahaantaana uu rowyada kale kaga duwanaanayo. sidaan haddaba waxaynu odhan karnaa waxay isku soo dhow yihiin primary-kaygu ma aqbalo isaguna in laba row oo isku number ay ku soo noqnoqdaan table-kaaga. Uniguna waa saas oo kale, balse mid ay ku kala duwan yihiin. Primary-kaygu ma ogolaado in la dhaafo isagoo maran, balse unique value hal mar ayuu ogol yahay in la dhaafo isagoo maran. Marka labada istiraado column-ka isagoo maran ka tagna wuxuu ku oranayaa all the way column maran baa jiraba, oo macnihii column-kii marnaa xitaa uu store gareynaya si aanu isaga oo kale u soo noqonin. Bal tusaale aynu ku soo qaadano, aynu soo furnaa new query kadibna database-keena soo dooranno. Haddaba waxaynu soo display gareynayaa table-keena iyo Hargeysa kaasoo inoogu jiraan intan oo row, macnihii waa 12 iyo kan 16aad oo casharkeena hore aan ku soo qaadanay. macnaheedu waa isku soo duubo 13 row ayaan u kaydsan table-keena. haddaba column-keenan telephones ah aynu doonaynaa in aynu ku apply garayno unique value xasuna waxaynu nidhi ma ogolaado in table-kaaga ay ku soo noqnoqdaan rowyo isla mar ahaantaana ay ka tirsan yihiin column isku wada mid ah. halkan waxaad ku aragtaa in ay ku jiraan 3 column oo isku taneefa number isla mar ahaantaana uu inaga diidi doono markaaynu sanad ku wareegayno ku apply garaya, sababtoo ah wuxuu odhanayaa duplicate row number duplicate ayaa laga helay buu odhanayaa. halkan aynu ku qorno markaa ku wareegay unique constraint-kan ku soo galeynay telephone bay leenahay, macnihii unique constraint-kan waxaynu ku apply garaynaa column-keena telephones ah sidaan halkan ku soo xusnay. haddaba balaynu ran garayna ku wareegan error-kan inoo soo saaray markaa waxa ku leeyahay to create unique index statement terminated because a duplicate key was found. macnihii sidaan hore u soo sheegnay wuu inaga diidaya sababtoo ah unique ma aqbalo column isku mid ah inay rowyada ku soo noqnoqdaan. haddaba aynu update garayno telefoonadaas isla mar ahaantaana aynu kala wada bedelno dhammaantood si uu inoogu qaato unique constraint column-kaas telefoon ah. halkan waxaa noogu qoray 2 line oo aynu doonayno inaanu ka update garayno number 1 iyo 2. labada row aynu doonayno inaanu telefoonadooda ka bedelno si uu inoogu qaato unique constraint. aynu ran garayno ku wareegan sidaas ayaanu ku update garasmay labada row saynu ogaano in soo display garayno mar kale. waxaad aragtaan in labadii column labadii telefoon ay ka bedelmeen. haddaba waxaa sure ah in unique constraint uu column-kaasi qaadanayo maadaama oo ayna hadda ku jirin haba yaraatee 2 telefoon oo isku eg. command completed. aynu markale soo display garayn haddana imaka column-kan la yiraahdo telephone ma aqbali doono 2 telefoon oo dambayna isku ekaadaan, sababtoo ah sidaad wada arkaysaan markii hore waxa ku jira telefoon isku eg. imaka si aynu saan u hubino waa inaynu soo gelinaa telefoon la mid ah telefoonada ku jira isla mar ahaantaana aynu isla eegno error-ka soo baxa oo uu leeyahay unique constraint dhamal a leedah ayaa diidaya ama ka hor imanaya in column-kani uu yeesho 2 value oo isku mid ah. kadibna aynu saa ku ran garayno. imaka waxaad aragtaa in uu ku leeyahay unique constraint dhamal a leedahdo cannot insert duplicate key, macnihii ma soo gelin karo waxyaabo duplicate ah table-ka la yiraahdo Hargeysa. halkan waxa kugu tusaya column-ka isagana isku lambarka yihiin oo ah 6239. halkaas ayuu noogu joogay casharkeeni ku saabsanaa unique constraint. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.